isugu soo baxay kulan ballaaran fagaaraha beerta xurriyadda ee magaalada Cerigaba kulankan oo ujeedadiisu ahayd sidii qaadaan loogu ururin lahaa wadada isku xidha gobolada Sanaag iyo Togdheer. haddaba kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay wafdi uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda madaxtooyada Somaliland. kulankani kadib ayaa waxaa halkaas ka hadlay madax dhaqameedka iyo cuqaasha oo soo bandhigay wixii ay ugu tabaruceen wadadaasi. anigu waxaan ugu dhawaaqayaa degmooyinka Ceelaf Weyn iyo Garadag 25,000 oo wan ayaan ugu dhawaaqayaa. geelana 100 awr baan ugu dhawaaqayaa. beeyada dheer iyo dahabka dumarka way dhageysanaysaan. waa iyagoo isku duuban, waa iyagoo aan reer lahayn, waa iyagoo aan afkoodii ku hadlaayo. وانا لو ogaan doona sida arintaas u dhacdo insha Allah bidilaahi kariim. ilaado anoo ka wakiila oo ka falgasha xeebaha badda cas ee bariga maxay toogeen degmada Mayd 100 barmiil oo daamura oo aanu soo saarayno dooyaha 100 foosto oo daamura anoo shirkadda hariga wakiila nimu ka yaraadu ka yaray markay wax dhisayso anigu waa 2,000 iyo bar geelaya beeyada qorshan ودريا قد ما ندريا نبضنا ندريا قرت ما ندريا أفكار كاهي سويني والله كاساريا أفكار رواكاهي سويني وحين هبوك ربي راغبو وارغبو وحشاقي صدحكم نيف واريا شرية تبنقيرة وحلونا تبنكرون نيف ويا يلا اعتردي جيلا waxaanu ka dhignay 40 arigana waxaanu ka dhignay 4 kuroon waa fayska hore waxa iyaguna dhinacooda halkaas ka hadlay maayirka degmada Cerigaba Ismaaciil Xaaji Nuur iyo Baransaabka gobolka Sanaag Axmed Maxamed Kiile. sanadood ku qorfilayn saraar ilaa iyo Burco iyo Cerigaba inta u dhaxaysa oo dhan ayaa maanta loo soo jeestay. waana aragtaan ulayska iyo imashada iyo sida layno ku helayahay. waa ogtiin gobolladeena oo dhan Jamhuuriyadda Soomaaliland dacal ilaa dacal in layno diyaar yahay. waa ogtiin Soomaaliya in taariikhda gobolka Sanaag iyo magaalada Cerigaba ku suntan qof kasta loo baahayo inuu geliyo buugiisa xusuus qorka ah. waa maalin aan dib loo soo marayn intaynu garanayno. waa maalin laynoo ballan qaaday jidkii xanuunka badnaa ee dhibaatada inagu hayay dad badan ay dhiga geeriyoodan Allah u naxariistee oo maanta laynoo bilaabayo kow. waxa iyaguna dhinacooda halkaas hadalka isaga daba maray xildhibaano iyo gudida mas'uuliyiinta wadadaasi. gabagabadiina waxa munaasabadani ka hadlay oo soo afjaray wasiirka wasaaradda madaxtooyada Somaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan. walaalayaal haddaynan wada aynu ku socono lahayn oo madaar aynu ka dhoofna lahayn oo lahayn waxa weeye dekad aynu wax kala soo degno horumari mayno. waxaana horumarku ka yimaadaa bulshada sida iminka aynu ka hadlayno in wax la isugu geeyo oo wax la isugu darsado oo loogu dhabriiro oo loogu niyad samaado. waxay iska ilowdaan kuwa waswaaska ah ee wax matarayaasha ah ee leh la samayn maayo waa la samaynayaa indhahooda shana baa la samayn doonaa. waa Axmed Weli telefishinka madaxa